بسم الله وكفى السلام الله عليكم إخيار ميل البدء الدنيا كجوكتان كسر دوادا ورباهنتي نكوبها ودي Southern Media Corporation ومروا البعض كاشان ورك حقيقوين كأه سياسة إسديدن يكوى يسوقل إسر صباين يجيز كأفريقيا قحوذيني أيان نقلينا مانتي وأن نصنعنا بإذن الله باري isbiidkii tirada badnaa oo siyaasadda waanu ka nasanaynaa balse laakiin waan ku qaxweynaynaa haddii Allah uu dala uu ka raali noqdo qaxweynta marka waxay taaban doontaa khaatumay taaban doontaa isbahaysiga Somaliland iyo Puntland bay taaban doontaa Mayland bay taaban doontaa ما أركيس حسن شيخ محمود بيتابن دونتا مسافنين وان آدينا مرة بعد مرسد حاد كوسو دوادا أو دركا ورباهنتي إني جامعة اللغيسة عن ليدي كلا هاي دقيستيال يداو ضيال وعن كورو مريا سيدان هراء وشاقني إن كستو صوماليدو ايترادو رق أمانتي ميرشارية اسمالا داما حدنا إيادو أمان أيسان نغا أهين waxaanu horaan u sheegnay in bahashan Kampala ay ka degan doonto ayna ka shaqeeyeen rag siyaasiyiin Soomaaliyeed ah ay ugu horeeyaan markayse macnii Sheekh Shariif Sheekh Axmed Saciid Cabdullaahi Dani Axmed Madoobe iyo waliba lafta gareen oo jokerka ciyaara dhankaana u dheela waqtigana ka dhameynayay Xasan Sheekh Maxamuud ka waashay haddaba Kampala Xasan Sheekh Maxamuud uu ku cararay markii 100 heshiis uu soo galay Masar uu yiri adinka iskale Soomaaliya Ethiopia uu yiri adinka iskale Soomaaliya Turkiya uu yiri adinka iskale Soomaaliya Eritrea uu yiri adinka iskale Soomaaliya Shiina uu yiri adinka iskale Soomaaliya Ingiriis uu ku yiri adinka iskale Soomaaliya oo ma arkayse macnaheedu Kenya uu ku yiri adinka iskale Soomaaliya Yahuud uu ku yiri adinka iskale Soomaaliya Ajab iyo Arab iyo Afrikaan waxba aanu reebin wadamo aan isku siyaasad ahayn aanay is ogolayn isaga meel isugu keenay Soomaaliya way idinka dhaxaysaa buu yiri qof walbana waxa rabtidaan ku fulinaya Soomaaliya heshiis ah adduunka la heshiis ah Soomaaliya heshiis wuxuu ka dhigay in aadan yabaal iyo ma arkayse maqokori ay dhufays kala galaan in aadan yabaal gudaheeda dhufays ay kala gasho oo abgaal seeri loo sameeyo seeri ma taqaanaa xuduud waay xuduudda labada dal ayaa waxa la seeriga waayahay horta Soomaaliya heshiis dunida la heshiis ahna iska celinaya iska celi ayuu ku dhameeyay waad iga ogtiin oo sharaxaad iyo fasiraad gaar ah uma baahnidiin adduunyada la heshiis ahna Ethiopia Masar oo meel isugu keenay Imaaraad iyo Turkiya oo meel isugu keenay da waxaan isqaadan karin waaya laakiin ugu dambeyntii safarkiisii ka soo bilowday 15 May ka hor qayladu uu qaylinay Xasan Sheekh Maxamuud oo Maxamed Cabdullaahi Farmaajona ugu gafay uu yiri Farmaajo naag uu furay ayuu macaasi ilma kaga dhalaya uu ku fulfuulaa uu ka sinaysanaya af oday aanu ahayn Xasan Sheekh Maxamuud ma xishooday ogaada dhibaatadii uu u maray markayse burburinta qaranka ummadda Soomaaliyeed ciidanka Soomaaliyeed sirdoonka Soomaaliyeed haybadda iyo sharafta iyo karaamadii Soomaaliyeed dhibaatadii uu soo maray Xasan Sheekh Maxamuud 3 sanadood kadib iyo lagu daray 15 May wixii ka horeeyay oo waqti kaga qasaaray baashi waxay dul tagtay Yoweri Museveni marka waxa la rabaa marka adigu aad hawl qabatid maxaan faa'iiday waa inaa isweydiisaa hatta ganacsatada way taqaana ganacsatada waxay dhahayaan war annagu waxaan hadii aan dhaqaale gelino maxaan ka faa'iidnay waqti dhaqaalaha hadaan gelino marka Xasan Sheekh Maxamuud intaasoo dhibaato dalkii macnaheedu uu geliyay isaga intaasoo dhib uu maray dhiig bani aadam buu daadiyay
sharaftii iyo karaamadii Soomaaliya dhulku dhigay sida aan idiin sheegaynay maantana ayna cadaynayaan siyaasiyiinta waliba hawiye oo ma arkaysa isagu isku jaalka ahaayeen Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame iyo tiimkaasi shalay waxay sharaxayeen waxaan muddo aan idiin sharaxnay oo ah Xasan Sheekh Maxamuud dalka waa lagala wareegayaa 15 May 2025 haddii la gaaro waxa weeye qalinkiisu ma shaqaynaayo taasina lafta gareen uu og yahay waa kan lafta gareen uu ka lahaa meel walba oo fagaara ah Nairobi marka la isugu yimaado siyaasiyiinta marka ay dhahaan lafta gareen wax inoo sheeg markaas waxay ku lahaayeen maxaad Xasan Sheekh Maxamuud uga daba dhimanaysaan 15 May hadduu gaaro wixii ka dambeeya qalinkiisu ma shaqaynayo maxaad isu dhibaysaan Xasan Sheekh Maxamuud maxaad uga daba dhimanaysaan already wuu soo ogaaday iswaanu la sheekaystay adduunku la sheekaystay siyaasigaasi firfircoon weeye oo ma arkaysa Xasan oo baraf jajabinaya siyaasadda ku jiray oo dawladnimada ka soo bilaabay hoygii gobonnimada Baydhabo waad garanaysaan dawladdii shaati guduud buu macnay wasiir ka ahaa dawladdii Maynindana 7 gobol waxa weeye Shariif markuu madaxweyne ahaana shaati guduud kursigiisii ninka bedelay lafta gareen buu ahaa general shaati guduud markuu xanuunsaday Wiesbaden ma arkaysa uu tagay Germany waad garanaysaan meeshana uu ku geeriyooday Xasan Sheekh Maxamuud markaasi baraf uu jajabinay marka su'aashiis weydiintana waxa weeye maanta dalkii la oran jiray Soomaaliya waxa madaxweyne ka ah Ambassador James Swan oo u dhashay Mareykan haddaad maqasho sida korneelka uu sheegay wadan ergey baa loo soo diray haddaad maqasho wadankaasi xor ma ahan tusaale maantay Soomaaliyada weyn ee shanta Soomaaliyeed la qaybiyay marka laga yimaado oo aan xagga iska dhigno Soomaali galbeed oo aan xagga iska dhigno NFD oo aan xagga iska dhigno Djibouti intaba waa Soomaaliye Hargeysa iyo Garowe Kismaayo iyo Baydhabo Xasan Sheekh Maxamuud ma ka degi karaa maanta isaga madaxweynihii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed ah kama degi karo laakiin Ambassador James Swan ma ka degi karaa mise kama degi karo beenlo waxa la yirinin maqan iyo nin mootan buu marqaati ka dhigtaa waayahay daraad qorqor uu la joogay Swan shalay lafta gareen buu la joogay beritoole wuxuu u socdaa magaalada Garowe saad dambana wuxuu u socdaa magaalada Kismaayo u socdaa bal aan ku weydiiyo marka dalka yaa madaxweyne ka ah marka Ambassador Swan Hargeysa tagi karaa oo wuxuu tagi karaa Garowe oo wuxuu tagi karaa Jowhar oo wuxuu tagi karaa Dhuusamareeb oo wuxuu tagi karaa Kismaayo oo wuxuu tagi karaa Baydhabo waayahay Xasan Sheekh Maxamuud miyaa madaxweyne dalka ka ah mise James Swan Soomaalida ma ogtahay xaqiiqada way iska indhasar caadisaa looma baahna runta weliga ha ka leexanin xaajada haday kugu timaado waa la abaaraa oo siday tahay baa loo abaaraa war dalka yaa madaxweyne ka marka haddii Swan intaas magaalooyin uu tagi karo dawlad goboleedyada looga taliyo Xasan Sheekh Maxamuudna aanu tagi karin yaa dalka Soomaaliya madaxweyne ka ah maxaan horaan idinkugu sheegnay marka deadline-ka Xasan Sheekh Maxamuud deadline-kiisu waxa weeye waa bisha June caalamkana ishay ku haayeen dawlad goboleedyadana way ogaayeen siyaasiyiintana way ogaayeen muxuu deadline-kiisu u yahay bisha June wuxuu soo diyaarsaday dalkan doorashada beenbeenta ah inuu marsiyo ama dawlad goboleedyada uu yiraahdo waa ka tanaasulay deal ila gala 135 baa loo noqon xildhibaanada 135 oday baa soo xulaaya inuu xamar hoteelo isugu geeyo 135 oday Soomaaliya shanta qabiil markaas kadib lafta gareen 77 xildhibaan uu soo xulaaya aanu soo xulin Axmed Madoobe 40 iyo dhoorka uu soo xulaaya aanu soo xulin Garowe Siciid Dani 40 iyo dhoorka uu soo xulaaya uu soo xulin Somaliland kuwa ay wadataa macnaheedu uu xamar ku sii kufsado siday horeba u sameyn jireen sidoo kalena 36 uu soo saaro qorqor uu macnaheedu isaga uu soo xusho Xasan Sheekh Maxamuud guudlaawana iyo Sheekh Shariif sidaasi loogu dhameeyo ajandaha uu watay intaas ay ahayd haddii intaasi ay u shaqayn weydana dalkan wuxuu doonayay inuu ma arkaysa macnaheedu shabaab uu dhiibo
intaasna wuxuu ku dadaalayay marsha allah wax la yiraahdo inuu marsiyo baarlamankan hadda Soomaalidu waxay u maleeyaan baarlamankan aadan madoobe inuu iskii u furay Soomaalinimo uu u furay oo baarlamankan in la furo lama rabinba Soomaalida ana u sheegay laakiin annaga yaan ka cabsanaa ilaahay baad idhiir rabtaa ilaahay waan sheeganaa inaan ka cabsano badankeen laakiin siyaasiyiinta Soomaaliyeed sida ay faranjiga iyo ajnabiga ay uga cabsanayaan ilaahay uga ma cabsanayaan haddii sida faranjiga ay uga baqayaan ama Soomaaliyay aan uga cabsanayno annaga ilaahay aan uga cabsan lahayn innagana aan u isu ixtiraami lahayn dalkeenna 333 kilomitir oo square bad ah leh xeebta ugu dheer qaaradda Afrika leh kalluunka ku jira yahay kan ugu qaalisan benziinka inoo buuxa maantay waxa weeye Afrika oo dhan iyo Aasiya Amerika inoo soo shaqo tagi lahayd waa loo soo tahriibi lahaa sida 700meeyadii Mareykanka iyo Ingiriiska iyo fiisada intay dalbadaan 6 bilood 4 bilood macnaheedu lagu abaadin jiray oo kale loona diidi jiray Talyaanigii macallin gumaystay la ima sheegine waxa weeye aniga la kulmay gabadhii cadaanka ahayd oo ma arkaysa Yurub intaan imaaday interview iyadoo qaadaysa ii sheegtay in hotel Juba iyo Curuba si aan u booqdo 700meeyadii ma arkaysa macnaheedu anoo European ah oo wadamada ugu baawarka badan Yurub ah macnaheedu fiisa Soomaaliya aan weydiistay oo la ii diiday 4 bilood 3 bilood marka dokumeentigayga uu maqan yahay baasaboorkayga lacagtana la iga shubay wixii waa la ii soo celiyay ma galayst Soomaaliya saasay strong u ahaan jirtay marka ma arkaysa Xasan Sheekh Maxamuud deadline-kiisi way la socdeen nimanka Mareykanka markay yiraahdeen dalkan Qatar baa ku soo wajahan ilaa ay muddadaasi laga taxadaro Xasan Sheekh Maxamuud iyo tiimkiisii waxay u diyaar garoobeen villada inay ku wareejiyaan ma arkaysa macnaheedu shabaabka ama culimada lugaysa garabkooda ma garanaysaa laakiin waa fiiri Xasan markii arintaasi ay ka fashilantay waatan ma arkaysa masaajidka uu istaagay uu soo hayn waay ilaan qorshihii intaasi uu maleegay ayaa ma arkaysa fashilmay waa kan uu lahaa ma arkaysa propagandistayaasha gudaha waxaa nooga daran kuwa ajnabi ah hadda diyaaradii maxaa lagu celiyay ma amaan daraa aragtaan intay ka dhacday waxba dhacay maxaa dhacay waatan masaajidka uu kala haa laanahu uu fashilmay qorshihii uu soo waday ayaa fashilmay markii siyaasadda meel walba isu soo xidhxidhay markii lacagii lagu qabtay uu wareeray oo Djibouti 400 milyan lagaga xanibay oo ma arkaysa macnaheedu 700 milyan Afrikadaas Nigeria meelahaas lagaga xanibay ya Switzerland hadda aan joognana ma arkaysa 260 milyan oo dollarka Mareykanka ah isagoo tahriibinaya laundering uu sameeynayo macnaheedu tooraha lugeeya Mareykanka uu gacanta ku dhigay Donald Trump thank you baan leenahay Donald Trump weligay ma taageerin laakiin waxaan taageeray maalintii macnaheedu xarumihii dawliga ah masaakiinta laga soo jajabiyay oo dawladana waa loogu adeega la yiri been laga sheegay yaani shacabkii marasta banaanka maxaa habar gidir inay deganaato maxaa loogu diidayaa guryaha dawladda haddii macnaheedu dawlad aan loogu adeegaynin haddii Xasan Sheekh Maxamuud intuu gato bangiyada Switzerland iyo Nigeria iyo Malaysia iyo Turkiya uu ku shubaayo waryaa habar gidir baa ka mudan masaakiinta Soomaaliyeed baa ka mudan inay deganaadaan daaraha macnaheedu lacagtii wixii waa la lacageeyay dadkii banaanka lagu shubay macnaheedu hantidiina dadka wax looguma qabanin that's very bullshit hadda ma fahmaysaa macnaheedu wadaniga ku xaq leh markaasi markay meeshaasi joogto habar gidir inay deganaato ma aan in laga kiciyo waay laakiin hadiiba dawlad aan loogu adeegaynin waay maxaa looga kicinayaa su'aalan ku weydiinaa marka Xasan Sheekh Maxamuud qaxwadeena aan ku jirnaa farmaajo uu ku oriyay qabiil uu habar wacday macnaheedu uu caytamay sharaftiisu dhulka la galay sharaf meel uma taalle nin xaaraan cunay sharaf meel uma taalle waxba ma reeban uu isu soo qaawiyay islaantii waxay tiri macnaheedu warna iga tag macnaheedu mana waxaysni warna iraacay dhahday mana waxaysni hadal ikhtiyaareed maahan warna iraac hada ma fahmaysaa Xasan Sheekh Maxamuud hadda qorshihii Soomaaliya u burburiyayna
ma hayo oo Yoweri Museveni ayaa ku kor joogtaynayaa lagu yiri by standard u dhaa Jarmalka macnii Yoweri Museveni ayaa labadii bilood bir report ka qoraya waa madaxweyne dal waay American iyo Europe waa iskala soo tagay Arab waa laga soo dhaqaaqay nin Afrikaan ah oo ma arkaysa macnii ugaali ayaan ku hayaa leh wax kale kuma hayo xasanow ugaali aan wax ka sii kara reerkaaga hadii la soo weeraro adiga caruurtaada hadaa difaacanaysaan macnii lacag hal isiyo ilmeygan difaacana miya dad leedahay baa leeyahay bariya dalkaada iskala difaaco walibana waxa loogu daray calooshood u shaqaystayaal oo ma arkaysa mushaar aan la siinin oo Soomaaliya waa inaa soo qortaa waa inaa keentaa kaygana wuxuu qaadanayaa $1,500 diyadiisana waa $10,000 oo hormarisa Soomaaliyana xuquuq bay ku leeyihiin khayraadkiisi because waa u dhimanay xaqan ku leenahay waayahay haddii aad iswaashidna dalka anaa kala wareegaya leeyahay ciidanka aad soo qoraysid oo lacag la'aanta ku shaqaynayana ciidankaasi kamaankooda anay hoos imaanayaan Soomaaliya marka imisaan idin lahaa dictatoriyad bay noqonaysaa imisaanu idin lahayn waan jamacaan ka dhigayna imisaan idin lahayn saddex qaybood baa la dhisi rabaa ciidanka Soomaaliya saddex qaybood baa loo dhisi rabaa saddexdaasi qaybood waxaana la hoos geyn rabaa Yoweri Museveni oo ciidanka ugu badan ee Asomta iskale ayaa la hoos geyn rabaa Xasan Sheekh Maxamuud marka meeshaan laga diro markaasi kadib madaxweynaha cusub ee imaan doona ciidanka Soomaaliyeed bacdama la laayay oo eber u yahay ciidanka Soomaaliya lagu bilaabayo kuwaasay noqon doonaan qorshuhu waa sidaasi imisaan live-ka idinka lahayn inta waxaan aanay soo bambixin oo bahdalkii ka dhacay Uganda aan la isugu imaanin waayahay xasan muxuu dheefay marka farmaajo oo ummadda iyo dalka u roona macnii uu ku oriyay beenuu ka sheegay wuxuu yiri askarta Soomaaliyeed waxa lagu laayay Aqsum iyo Maqale iyadoo askartana tababarka ugu fiican qarnigan la joogo wadan dhiiba qaaradda Afrika Eritrea loo diray ayuu macnii ku been abuurtay ma arkayse askarta Soomaaliyeed wuxuu ku been abuurtay waalidiin wuxuu meelaha soo joojiyay macnii kuwa kaakiyoobay oo aan waxba dhalin dhalmada Ilaahay baa bixiya ayuu banaanka soo joojiyay mariyo gudgududa ana weerayga maqan wuxuu meesha soo joojiyay gabdho 20 jir ah 18 jir ah 23 sano jir ah oo dhahaya wiil baa iga maqan wiilkayga waa 30 sano jir Ilaahay baan kugu dhaarshay gabar 23 sano jirta wiil 30 jir ma dhali kartaa iyadii 23 sano jirta wiilkana 30 sano u jira say ku dhici kartaa marka cunug aabihiisi yaani aabihi 2 sano ka weyn waliga maarta adiga aabihi yar cunuga 2 sano weyn say ku dhici kartaa macnii gabdho noocaas oo idaacada keenay oo $6 loo tuuray iyagana way xishoon waayeen iskuul ma gelin dawladnimo ma aysan arkin waxa lagu abaabiyay reer hebel waxa lagu abaabiyay qabiil waxa lagu abaabiyay iska celinaayaa iska celi reer hebel adduunka sidoo u shaqeeyo looma sharxin seminaar lama gelinin adduunyada way arag uma noqonin niman dhul marin dhaaya ma leh sidaasay dhahdaa Soomaalida niman wax dhiganna dhaaya ma leh isaguna waayahay Xasan Sheekh Maxamuud marka muxuu dheefay intaas oo been abuura intaas oo macnii Saade Cali buu shirqoolay xildhibaankii ma arkayse Saalax in la yiraahdaan u maleeyaa oo macnii Arab Saalax ahaa oo dhaliilay madaxtooyada isagii mahad salaad ay ku shirqooleen teeramkii hore Saade Cali waxay hees u qaaday shabeellada hoose isbaarada iyo gumaadka iyo dhiigga daadanaya ayay ka gubatay dadkii burwaaqada ku jiray oo la soo tarxiilay oo macnii xariye inta la geliyo lagu tuugsanayo war sidaan si ma ahan kaliyay dhahday intaasay dhahday daba jeex iyadoo saaran gaari ayaa lambar 4 lagu la shanaqay xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka Soomaaliyeed bay ahayd gabadhaasi reer qaalid annaga dumaashideena ahayd nafsadeena because
nin raxaweyna ilmo u dhashay nafsadeeda moogta inkastoo markii hore ay iskala weynaatay markii kacaankii milatariga sheekadoodu waa taqaanaan hadda ka hor aan ka sheekayna marka isku soo wada duub waxaan rabaa inaan isweydiinno war xasan sheekh maxamuud 3 sano way u dhamaatay maalmaha u dhiman maanta may 3 aan qabnaa Soomaan mise waa qaldanahay imrigeena midiyaa loo haystaa sidaasaan u dhamaanaynaa may 15 waxaa ka dhiman 3 sano 11 cashaa ka dhiman ilaahay awoodiisa darteed maalma kadibna waxa weeye 3 sano u dhamaanaysa sida caadada ah sanadka ugu dambeeyana waa iska campaign-ba Soomaaliya sida lagu yaqaano sanadka ugu dambeeya waa campaign muxuu dheefay marka waxay dhahaysaa lacaguu gurtay ka soo qaad lacagta uu gurtay xataa xaaraanta macnihii intuu rabay ma helin because qaarna Switzerland lagaga qaaday masuq meeshan waa ka mamnuuc qaar waxaa lagaga qaatay Nigeria qaar waxaa laga qaatay Djibouti hadda ma fahmaysaa inta kale laaluushu ku dhiibay wiilkiisoo wax dilay buu milyan ku dhiibay iyo macnihii dulaal hadda ma fahmaysaa waayahay lacagtuu rabayna ma gaaray xaaraanaan ku aqaanaa berri ka saa dambana isagoo tuugsanaa ayaad arkaysaa dadka xaaraanta macnihii qaataa markay xilka ka degaan isla markii way soo gaajoodaan maxaa sidaas u leeyahay man daliil waxaa daliilku ugu filan xasan sheekh maxamuud isagoo madaxweyne 4 sano 5 sano ku dhowaad soo noqday hadda ka hor oo macnihii mushaarka ciidamada 11 bilood la tegey garaam ama waxba reebin jawaano iyo kintaal dam wax walba uu siiyey kub iyo calaf waxba aanu reebin islaamii xildhibaanada macnihii qaarkood wuxuu qudbasraysta iyo wuxuu macnihii fanjar la dhaco xaaraan ah uu ka dhigay sida la og yahay waana naqaan heblaay inaan dhaha mar raba hadda ma fahmaysaa markii farmaajo xukunka uu saarnaa shaatiga uu xirnaa ma aragtaan iyo futashaari madaxweyne xidha miya kaas 24 sac kaasuu shir jaraa'id la imaan jiray bidaarta halkaasay joogtaa iga bidaar weyn naclad baa ku degtay hadda ma fahmaysaa suudku iska bedeli waaye waa madaxweyne qaranka Soomaaliyeed waay xukunka markuu qabsadayna taay 40,000 ah taay 70,000 ah sirwaal 90,000 ah saacad fiiri macnihii xaaraanta inaysan meel imaanin ayaan ku baraanay wax kale aan kugu daraadana macsiyayso ma ku deeqayso waa gubanaysaa all the time laakiin hal xabba xalaala xidho reerkoo dhan way ku filan tahay aad leedahay hal xabbo oo xalaal ah maanta dhan way macaantahay reerkoo dhan ay ku filan tahay saasaad leedahay marka waxaan ula jeedaa xalaal iyo xaaraan isku mid maan ilaahay ba isku mid kama dhigin waxaan saas u leeyahay hadda beritool hadduu xilka ka degana dadka laga yaabo inay majeertaan oo ay dhahaan allah xasan sheekh maxamuud iyo reerkiisu way u gashay yaa meelo kastay daara ka dhisteen lacag bay haystaan soo maahan berri ka saa dambe karfantiisoo loo tuugsanayo waad arkaysaa haddii la nool yahay adduunyaan aqaanaa weligaa xaaraan ha majeeran weligaa xaaraan ha urursan weligaa xaaraan ha isku dayin 1 milyan oo xaaraana waxaa ka fiican $100 oo xalaal ah oo wallaahi ah xasil baad helaysaa waxaan saas u leeyahay muxuu dheefay marka xasan sheekh adduunye ma dheefin aakhire ma dheefin dal ma dheefin diin ma dheefin dunya diinna hadday diin tahayna hadda diinna masaajidkii kabaa la galay hadda diin hadday tahayna ma arkaysa macnihii Etoobiyaankii u sujuuday ilaahay qayrkiisa looma sujuudi kara doogow waay askartii ma arkaysa Soomaalida duqaysay gobolka Gedo oo Soomaalidu ay la dagaalameen meydkooda u sujuuday وكان حسن داير أويس والله يا أبي ويري ورنيه حسن وحير حتى مدح كرو قاط أديك فوق مدح فوق حسن داير يا أبي كورنيل مجود با يا أبي كورنيل مجود با وحيري وحير ولا لو مدح كرو قاط
meel walba foorarkaa naga jooji boqoradda ingiriiskaa dhimatay wuu foorarsan yahay kenyaati wuu foorarsan yahay cajab iyo afrikaan wuu foorarsan yahay tanzaniya wuu foorarsan yahay addis ababa wuu foorarsan yahay hees foorara marka inaan ka soo saarno waay markii dambe suu u foorarsanayay xarunta midowga africa yaa hoteelkii shabaab now aa la yidhi shabaab now isagoo foorarsan waa master foorarsade foorarsade marka waxaa la yaab leh master foorarsade nimankii siyaasiyiintii khaatumo dad sharaf laa jooga oo geesiina dhulbahante waa dad sharaf leh laakiin nimankii siyaasiyiinta hoggaaminaayey khaatumo inay foorarsada u sii foorarsadaan ficil xumo waa taas fanjar baa ku dhacay ya ilaahay baan kugu dhaarshe xasan foorarsade ma u foorarsan lahayd adiga soomaaliya oo adaan ku weydiiyey ii sheega khaatumo in oo sharaf leh oo macnihii gobonnimo dirirtay oo isxoraysay maantay in ay gaashaanla hoose u dallacaan fiiri waagii hore dadku markay dallacayaan gaashaanla sare ay u dallaci jireen laakiin hadda waxaan joognaa gaashaanla hoose oo loo dallacayo gaashaanla sare oo gaashaanla hoose u dallacayo waxaan saas u leeyahay khaatumo oo macnihii gobonnimo dirirtay gobonnimadu waa waxaan la siin saarmadoobaha ah abwaan jaamac kediya uu ka heesay uu ka gabya aan dhihi lahaa yaa ayay foorarsaday u sii foorarsadeen siyaasiyiintooda nasiib darro ma tahay mise maahan markaasaa maanta waxaa la leeyahay khaatumadii sharafta lahayd khaatuma naasa dheereey xaq miyaa in loogu yeero saas xaq ma ahan laakiin siyaasiyiintoodaa meesha dhigay in maanta la yidhahdo firdhiye ma arkayse macnihii shirka markuu bilaabanayo ayaanu keenaynaa saacad ka hor waa isku sawiraynaa kadibna lugta furaan leennahay jabuuti aad ma arkayse macnihii hawsheennan annagaa wadanayna masiir iyo go'aanna ma leh nasiib darro ku dhacday waayo sideedaba horta qof xabad weyn naagu ku royi nin xabad weynaan kuma roona because naagta hadday xabad weyn tahay ilmihii bay caana ku habaysaa moogta xabadkeeda weyn soo ma ogid laakiin nin xabad weyn adi maxaa ka dheefaysaa ilmo kuu nuujin maayo hadda ma fahmaysaa kuwa xabadka waaweynaa ugu liitaa la yidhahda xataa gogosha naagaha saasay sheegaan ani weligay naag ma noqon cisbitaal inta tagay cunug laygama soo jiidin saaad og tihiin hadda ma fahmaysaa laakiin dadkii tijaabiyey dumarkaa sheegay iyagaa baraha bulshada xataa imaaday waxay dhaheen nin xabad weyn macnihii dhaadhaa waay waxay ku leeyihiin ragga waa inuu seed ahaadaa sida macallinka lugeeyo oo kale saasay dhahaan gabdhaha mooji hadda ma fahmaysaa marka waxaa gaagaabso aadan ingiriis oo gaagaabso waayo waa gaagaabsana waxaan saas u leeyahay dumar ragga akhriyaa jira waayahay raggow markaa socotaan kaamarada lugihiina iyo ha ku qaqabina dumar ragga akhriyaa jira calooshiina maxaa loo nool yahay bay dhahday xoolo maxay sheegayaan haddaan la isxafuujinaynin waa yahay islaantayda iska dulqaada xaaladaas sida dhahday kuwaan feeraha waaweynaana dhibay oo ragga sheeganaya kuwaasaan fiiri dumarka waxay dhaheen kuwa feeraha waaweyn quuradoodana lagama seexan karo sidii inuu taree raran isjiid rimoor jiidaayo oo maayafuulka fuulaayo oo kale biriima iyo teersa aan dhaafin
هذا فاهميسا wax ka cirweyna ma lahana la yiri ha digsi ma deeqo saasay dhahayeen digsi baasta ah iyo baaldi caana isku gambinayaan oo ku sheekaynaya islaam allah qaatamo ma nin naas weyn ma nin feerweyna madaxweyne waa bal niyo dadkan edeb daradooda balka waran khaatamo ma nin feerweyn madaxweyne waa ma hogaamiye waa saasay leeyin moogta ha cayninaan daaniga qaatamo hogaamiyahooda inuu feerweyn kala moojiyo soo hubiya ha laakiin lafta garan ma feerweyna saasay sheegeen dadka hey هذا ما فهميسا حسن شيخ محمود لوغو كقلقلوعين إلهي ku abuuray nin lagu qalqaloocan wagdala naaga ma jecla way ogyihiin ha calooshiisana waxay ku dhacday ma arkaysa qaskiisa way isku dhamaatay talama haayo saasay dhahaan that's why sheegow looga shakiyo tal Afrika أنا هذا شقي سويدي ولا شاء ولا قفصنا ماشي هي وين وقعتها مدحوين حسن الشيخ محمود والله كلا شقي سنة ماشي هي وأكو شيء مركز إسكو سوا أنا يدل إسكو جيران وقع لفت قرين وبلق ما إسلانتي سما شيء إسلانتي سما دين لفت قرين وبلق قابصه أوكي قابصه مركا إسلام الله محي مركا خاتمه محي وقف نين فور صدي محي وقف فور سنة يساعدك كارك إسكارك ما نقول no لا ما بحنوي no وين أدي داوي no أنت فاهم إيش ها مركا إرنا مجوجو لولنا مجوجو ولا ليالو إيه كلمية هذا مجالدي محا كجرته جوا إسوريستي جنتها مستلق لها مركي سودان أي أسو حيران ما شرتين كي إساق يا إسراف صدين ما دول بهنتا جنا إلهي بان يكون دارني ومايا لكن سياسة حماد الرجي هو جاميناي أيها سيدا سوكلا دول بهنتا مانتي إلهي ما كون دار شيء بنتلان إسماعيل لان هذا أمي دوبان حسن شيخ محمود سجال بلاد مركي للدقين أينا دول بهنتا إندوه كده ياي هدي مانتا لا يسوق تجانا ومعني الدكاد ده أنت يرتى لقى حلو ما حسن شيخ محمود أوسى جرمناي ما الدكاد أوسى ما ينكره ورنيك آدم يبال معني ما أنت الديارات دي حتى بوش كهليكوبتر كأن كنت تجي كرين وما أنت الدجال دي ما بح كده حايي فقي فالحما تيري وحي راين فقي هدو ما أنت وسير عشان ديك نقضي شباب هذا كذا بكودو جاي برنامج بحية كده جاي حمر بل ما أنت كور فيري ورهاد كوا حمر جوجو نما يقول لي $6 انت اللي دي سوسيو هبينكي كوده هبين اسلام كايدين سو سلامي يا كما بخي كرتان ها wax ka fujinaya male dawladda lagu sheegay kala bar waa al-shabaab madaxtooyada iyaga ka taliya marka inta ali dheer waa wasayna kama kuntu kada asaasan inta macnii wajiyadiin la fiiqfiiqo waxay waardiyeynaan aan jirin nimankan buruufiyay ku dhex jiraan shabaabkan iyaga la shaqeysta inta la idin sawiro oo la idin cawaro kooda habeenimo islaamka ku soo salaamay waaga kugu baryaay marka war islaamka saacadan muxuu ii soo salaamay islaamka maalin cad muu ii soo salaamo ayaa dhihi doontaa anigu waa ku oga hadda koora waxay soo saareen waxay dhaheen يعني قرح حداد أركتان شعبك مقدشو تليفون لمبر أو أنت سكا كوبن صوعة أفر اللي باتن ساعة دو فري وعن داي وحا سكا عررة بولشيت وعن سكا عررة إذن داي بولشيت فيري ما قرح كي كان يباد معني وعي صايد لا داي قرحان أركيك هالي قبو
sheego oo qaraxyada qabanaya xamar la soo gelinayo wariya qaraxyada noo dhaaf haddaadan daynina adiga ku maqan waa tii lagu cunay waad ogtiin marka macnii ma kuwii qaraxa keenay ayaad haddana inta wacdid qaraxa meesha maraay kaalay ma leedahay haye xaggee joogtaa magacaa gurigee joogtaa adiga aniga ahaa madiino hodan albaraka hotel guriga inta ku dhegan caynu shamsi miya ahaa bes haddaan ku imaanaynaa كب السلام عليكم وعليكم السلام يا واي إسلامك واي إسلامك إسلام سديت ساعة بينما إسلامك كسو سلامي حسابت مركز بقول سديت ديجري أي سوريجين أي سامرك إلهي يوم حاد إي أبورتي معني تراب محد يقدر يقويدي ساساد leedahay هاي مركز ومر حيرة يفندال إيه كلا دحين وحكو صباح عينا مجرو مركز فقي أنت غيرينا وسيرك قاشان ديك هدور نقضي هذا ضل حرينا يا عبد القادر جامع شباب ولا شقينا يي وريا هاي جامع بمبطور وهاي أبده فقنا معني أو قدومي أورك أرجع حسدا على الشباب الدجمة هذا إنه وحلا هذا هاي معني ونين أرجع حسدا الله دجال ماي ومالين جور هذا جور يسكجرا نينك قرحية بنتلان يقلمدك أقابل سنة لما نينك سود ويستي حكم كان وكفوري مركو سردون كهيستينا أنت قرحية وحمر كدني اللي أجي هاي والدنيا ده معني أي شاغان ومال والبلغو سو قرحية هذا فقه إنه كدم بقرحية الدلال فربضان مركو سردون كهيستي ومعني الدنيا ده إلهي عضينا يان أياد وحربتها إنا كدكتيد نين مواد صوماليات أو الشباب لا دجال ماي هي جامعنا وحربتها أرجع سوا إنا دهدي وريا هاي قبيالدين ويفوقات هدي جامع أرجع ساعة تكوش بديسان أو فقير أرجع ساعة ديدان أنا جامع وحنون نقول يا أولي ونون نقول يا وحنون والدفاعنا مركز صدقنا هيدي اللي يمرفلي لمن كان مال ضبضها لقاله وضا مرة دم الجديد القشاش وقشن معني ضبضها كوضا مرة ديدي كيجينا وإيه صافي أو مد اللايي أرجع سيدا الله شقيستا كيننا وإبر كآخر سنة ما يداني عاسي وحن كان دقي سنة يا ما مركا يسكو صوّد الدوب يبقي أيها أبا لقول إيشتي يبقي يا كنتالة توراي بنا بحا وزيرك قاشان ديقا شغلاتي ودماتي أو باوت مباح مانت مباح كورما هاو باوت مانتي هريري مدوبي اجا مقوكوري كورما اجا آذان يبال كورما سيدين الله يستسوية لي مانت وحان سوقنا بوا تلقرام كي ميدتك صومان هاو كوي نهاي شالي مركب فقه هدوي ماد هدا يقول ما تباش ومر دمانين هدا لسكو كوي هدا لسكو يماد waxaan rabaa raxweyn inaan u sheego ninkan ilkaha forlift leh oo mahad la leeyahay ka fujiye wiilasha digilay mirifle ninkaasi ayaan dhaweyd ilmuhu kaxeeyay dabku ku soo shubay walba xataa deegaanada digilay mirifle inuu ku soo dilo waxbay ahaan lahayd annaga u baahanba oo shabaab meel walba naga xirxireen Soomaan maanta haddana wuxuu leeyahay wiilal aan qaan gaarin qaarkood oo masaakiin oo yar yar ah wixii la idin dhaha qaata bas adinku waxba hadiidina ciidanka argagixisa la dirirka tihiin asluuba tihiin tababar la idin siin wuxuu rabaa haddana inuu dabka ku shubo oo lacagaystay ilaahay baan kugu dhaarshay walle ninkaas uu hunguri weeyahay shaati gudud markuu joogaan xasuusta wuxuu dhigi jiray mahadna ma fiicna mahad la'aanna ma fiicna mahadna ma fiicna mahad la'aanna ma fiicna يعني يعني دون تو قالنو هنغوري ويا انكارو قبا هنغوري ما بدر جايبه هذا ما فهميسا هنغوري يا ميل walba u geynay oday mahad marka wiilashaas idin wax xisaabsan miya kama fujisan kartaan miya warheeda dhalmada inay kula shaayaan ogahay islaantayda dhalaysaan mar arkay mar damba dhalinaan dhaaniga
because أول ما أركي جرنا موقت because ويحنون بدن تاي مركا المهان ما بقصوا كل لان ميا يدينك دبعت كم صار مرين ميا معنيه يعني كورنتو ده يا وقت قلنتو ده يا بربارين تو ده يا عسبتالكي يا الكهي يا وحي معنيه الشقة ما بكل يدين ميا وهو قاضي يا أركي سيادة يبالو جينا اللي صار الله ينايا يسقول العجيست already قرمين كده هاي قندراس كان يسقى قاطي شن بقول يكتر كون $1 ولا سي مركز دايدا إسكا علين كرين إيدين كإيدين تلا هدي اللفت جرين أتكو حشمين إنسان يا هدي اللفت جرين يسقى ودبكو قبابا ما هو البوحو كده جاي ماركيس معني سراكيل يبلايو كده لفت جرينكو كده قاقي لا يا لمبركو دقل يمرفلع حوي طلي شبوه باقي روح الرجري دقل با وحديدا نمان سديدا وحديدا نمان سقالة وحديدا فركيتيا وحديدا روبا وحديدا هذا ما فهم يساعد روبا ودبدل في عضو النقطة يساقوا عادي هاي ويعيس هو عبدا يستيساق أمير كيقو أمير المؤمنين وحسن شيخ محمود وأيوري قبورها إنه صوفاقو وكل عسنا هاي أمير المؤمنين كيقو إنه قاتك كان عسد وكل عسنا هاي أمير المؤمنين كيقو إنه قبل الصوماليات وقلوا في قليجك ومعني بلا محرم معني لو صوت تنته ولا عباتيو واوكي روبو سدا سوري وداديس way cadahay chief security kiisi ayaa hadda lafta gareen soo dhaweynayay waad u jeedeen Sheekh Ibrahim ma laha